kadib markii ay cadaysay maxkamadda degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer in lagu waayay dambigii lagu soo oogay macallin Cumar Cabdulaahi Maxamed kiiskan oo in muddo uu ka furnaa dhageysigiisu maxkamadda degmada Burco ayaa waxay maxkamaddu sheegtay in aanu lahayn wax dambiya isla markaasina la sii daayo Sheekh Cumar Cabdulaahi haddaba ehladii eedeysan Sheekh Cumar oo shir jaraa'id ku qabtay hotel Cafe ee magaalada Burco ayaa sheegay in cadaalad darro uu ku xiran yahay waxaana iska fogeeyeen lacag la sheegay inay ku bixiyeen si uu kiiskani u soo afkoo waxayna fariimo u direen cid kasta oo ay qusayso arintani waxaana kamid ah hadaladoodii eedaynta sideedaba qofka muslimka la eedeeyo xumaan lagu eedeeyo sharcigu wuxuu u dejiyay qawaaniin iyadoo marka horeba aanay banaanayn in qof muslima cirdigiisa la duro oo meel lagaga dhaco qodobada loo cuskanayo ee sharcigu markaa tilmaamay koow waxa ka ah in qofkan la eedaynayo horta oo qiraal yahay haddii uu qiraal noqon waayo waxa looga gudbayaa in markaa la weydiiyo inuu kan eedaynaya uu keeno 4 markhaati horta waxaan u bandhigaynaa arrinkaa lagu eedeeyay Cumar ee Maxamed Aadan iyo reerkoodu ay ku eedaynayaan inay horta been tahay Ilaahay agtiisa iyo ummadda agtoodaba waxaana cadaynaya sharciga wixii cadeeyayna cid ka daba imanaysa ma jirto marka halka waxaanu ka cadaynaynaa oo u bandhignay arrinkan sharciga kitaabka Ilaahay baan u bandhignay kitaabkii Ilaahay wuxuu xukumay caynka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka Maxamed Aadan ee walaalkeen ah markii lagu yiri war sharciga u bandhig arrinkaaga wuxuu yiri aniga sharcigu waxba iima hayo marka hore walaalayaal waxaan u mahadnaqaynaa maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan karsoorihii xukumay xukumkan cadaaladda ah ee gaaray eedaynta beenta ah ay su kaashadeen qayb kamid ah ciidamada CID da gobolka Togdheer iyo xeer ilaalinta gudoon iyo xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer madaxa xeer ilaalinta gobolka Togdheer Jaamac Ducaale ay ka qayb qaateen iyo qayb kamid ah dhakhaatiirta cisbitaalka guud ee Burco in macallinka la xiray horta 23 bishii 2019 xaqu isagu ka yiri waxa la xiray 27 halkaana ay taariikhdu isaga ka khaldan tahay waxaana markaa xukunkiisu uu soo baxay in Ilaahay ka bari yeelay sidoo sharciga ugu bari yeelay oo markaa dadka dhexdiisana loogu bari yeelay maxkamadii uu isagu doortay ay tilmaamtay inuu bari yahay oo kiiskan lagu soo eedeeyay uu been yahay 17 bishii 9aad 2019 waxaanu sheekhu dulmiye xaq darro ku xiran yahay muddo 7 bilood ah qodobka saddexaad eedaynta xafiiska xeer ilaalinta gobolka Togdheer waxay ku sheegeen in Cumar inanta yar uu kufsaday 7 subaxnimo kuna kufsaday qol kamida malcaamadda sida uu markaa miidiyaha uu ka sheegay aabaheed halka maxkamaddu horteeda waxa lagu fashiliyay eedayntaas beenta ah kadib markii la keenay xeer ilaalinta horteeda markhaatiyaal qaar kamida ay cadeeyeen inaanay malcaamaddu mar quraata aanay cidla noqon oo inanta yar iyo macallinku aanay cidla isu noqon hore waxaan ahay sheekha cadaalad darrada ku xiran walaalkii waxaan ka hadlayaa 2 qodob waxa weeye wuxuu yiri waxa la bixiyay laaluush waxa wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan $1 oo laaluush bixin waxa kaloo fadeexad markii arrintii ay ku cadaatay maxkamaddu ay cadaysay in ninkaasi uu bari yahay wuxuu fadeexad la wareegayaa miidiyaha uu leeyahay macallinku wuxuu caadaystay habla kale ku kufsaday madrasadda taana isaga cadayn doona cadaynteedan uga fadhina hadduu cadayn waayo waxaan u sheegaynaa inaan ka gacan la'aanayn Maxamed Aadan waxa ayaan darraa inuu markuu kiiska maxkamadda geliyay kii uu ilaa Hargeysa u socdaalay ee darafka odayaashiisa uu ka haystay ee cuqaashiisa uu ka haystay maanta inuu yiraahdo cadaalad darraanu ka tirsanayna oo laaluush baa la siiyay oo waxaan quraayo waa xaq darro oo uu miidiya istaago oo maxaa dhacday uu
ka caytamo waa ayaan daro marka waxaan u sheegaynaa maxamed aadan iyo darafkiisa adigaa bahasha maxkamadda geliyey adigaa judgment markii uu dhacay dee adigaa bahasha kiiska halkaa geeyay iimaan inaad u yeelato oo xukunka cadaaliga ah ee uu qaaday ninka garsooro ah ee Hargeysa laga soo diray xukunka cadaaligu qaaday inaad iimaan u yeelataa fiican waxa kale oo aan raacinaynaa macalinka inaad tiri waa caadaystuha cidda arrinka media la marmarayse wixii hore aan uga dul qaadanay intaas 8 bilood oo sheekhu xidhnaa aanu ka dul qaadanaynay maantana haddii markii maxkamaddu xukunkii riday ay ka daba yimaadeen ay ka daba keeneen inay duraan meediyaha la fadhiistaan fadeexad iyo ceeb waxaan u sheegaynaa inaanaan dulqaadanay aanaan uga dul qaadanayn maxamed yuusuf cabdilaahi maxamed wardi Somali Cable TV Burco